adhowahay aad baan kaaga mahadcelinayaa aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelin waqtiga qaaligaana siisay aniga iyo bahda TV-ga dalsan iyo waliba dadka barnaamijka daawanaya waxaan rabaa in caawa aan isleeyahay waqti fiican iyo waliba waxay noo tahay fursad aad u weyn maadaama in badan bulshada Soomaaliyeed ku dhaqangeeyan ay barnaamijkan tala dhaqtarka TV-ga dalsan daawada aan soo qaadna hadba mowduucan isleenahay bulshada inteeda badan faa'iidooyin badan ay ka helayaan Dr. Ahmed waxaan caawa aniga iyo dadkana daawanaya kaaga fadhinaa waa kuma Dr. Ahmed takhasuskiisu muxuu yahay mowduuca waa noo soo dirtay muxuu yahay soo dhaw Dr. aad baan mahadsantihiin waan salaamay adiga iyo martidaada iyo dadka dadweynaha daawanaya anigu kulleey laga warama jeclaan lahaa laakiin aniga waxaa la yiraahdaa Axmed Umar Abdi Axmed Baashi anasteeda waxaan kamid ahaa ardadii dadkii Soomaaliyeed jaamacadda Soqontana wax ka bilaabay kabacdina waxbarashadiisa dibadda ku soo dhameystay waxaan takhasus ku sameeyay qaliinka guud kaasoo shahaadada u sareysa ka soo qaatay kana diiwaan gashanahay dhakhaatiirta qaliinka ee waddanka Ingiriiska marka aniga takhasuskaygu waa qaliinka guud oo dabcan saameynaya meelo badan oo jirka kamid ah oo ay ahaato maaragtay u badan oo ku jirta iyo maaragtay qaliinka burooyinka iyo wixii la xariir taas waxaa filayaa qaliinka guud in la yiraahdo oo ku filan tahay qofku asaga kala soo baxay waxaan marka jeclaa aad oo ka mahadcelinayaa maaragtay martiqaadkaaga in dadka dadweynaha loo faa'iideeyo oo maaragtay bal looga waramo xanuunada la xiriira qaliimada waxaan jeclahay caawa inaan wax ka taabano oo wax ka dhiraahno qaliimada la xiriira ama xanuunada la xiriira xameetida iyo maaragtay waxa guud aqoon guud ahaan aan uga faa'iideyno bal sida ay loo wajahayo iyo sida uu yahay iyo sida loo daaweeyo iyo xanuunada ku dhacay waxyaalaha la midka Dr. Ahmed Baashi aad baad u mahadsantahay mowduuca anaga ee dadka la daawanaya barnaamijka noo soo xushay waxaan u maleynayaa inuu yahay mowduuc aad u wanaagsan oo dadka inta badan ay ka faa'iideysan doonaan qofka bini'aadamka ah ee Ilaahay uumay waxa uu qaybo badan oo jirkiisa kamid ah uu sameeyay midba gooni ah oo shaqo gooni ah u qabto qofka bini'aadamkana inta badan ma yaqaan xameetida qofka jirkiisa meesha ku taala laakiin waxay ogiin oo kaliya in qayb kamid ah caloosha waxyaabaha ku jira qofka bini'aadamka uu sameeyay tahay xameetida qofka bini'aadamka halkee uga taala xameetidu sidaba waxay ka tirsan tahay tubooyinka beerka ayay ka tahay xubin ka tirsan oo dhinac kaga lamaan marka xameetidu inta badan waxay ku taalaa beerka hoostiisa beerkana ku lamaan tahay waxayna ku xariirsan tahay tubooyinka beerka oo waxa la dhihi karaa waa kiish ka dhex baxsan oo dhinaca ka ah xameetida tubooyinka beerka ka yimaada tubooyinkaas oo beerku marka uu dheecaanka soo saaro dheecaankaas oo dheefshiidka ka qayb qaadanaya dheefshiidka jirka waxaan leeyahay cunnada la cunayo gaar ahaan cunnada dufanka leh dheecaankaas beerku soo saarayo marka qofka uusan cunno cunin ama markaas dheefshiid uusan socon ayaa dheecaankaas wuxuu ku leexdaa kiishkaas dhinaca marka waxay kaydisaa dheecaanka beerka ka yimaada ayay kaydisaa waxayna ku xariirsan tahay tubooyinka beerka markasta waxay ku hoos taallaa beerkay ku dhagan tahay oo ay ku taallaa markiiba ilaa konton maaragtay mililiter iyo wax la mid ayay u kaydin kartaa marka qofku uu cuno oo qofku uu cuno ama gaar ahaan cuno dufan uu cuno ayay markaas waxay samaysaa dhaqaaq inay is aruuriso oo ay soo tuurto dheecaankii ay kaydisay oo ay ku shubto caloosha waxaan leeyahay tuuba mindhicirada taas oo ka qayb qaadanaysa dheefshiidkii cunadii qofkii cunay dufanka lahayd marka shaqadaas muhiimka ay u qabataa jirka halkaasina kaga taallaa dadkuna de waa ribad Soomaaliduna waa taqaanaayo badanaa markay xoolaha qashaan iyo xameetida dheecaanka waa dheecaan yara cagaaran oo kharaar oo maaragtay runtii dadku way yaqaanaan markay dadka xoolaha qashaan way yaqaanaan faahfaahinta guud ee la siisay Dr. Ahmed Baashi aadan kaaga mahadcelinaya haddii aad noo sheegtay intaas oo shaqo ah inay qabato dhacaan ay soo saarto dhacaan ku soo shubmo caloosha ay ku shubto wixii ay kala fiid ay hawshaas badan ay qabto haddii qofka bini'aadamka ah hawshaas badan ay u haysay oo dhibaatooyin fara badan ay qofka ka difaacaysay haddii mashiinku uu qayb ka mid ah oo dabkii uu lumay wax uu lumay waxay noqonaysaa in tabar darri ama mashiinku uu shaqeyn waayo
haddii qofka xamitidiisa ay xumaato si uu noqonayo qofka saas sheegnay xamitidu shaqada qabanayso waa kaydinta dheecaankaas socda ee beerku sida joogto soo saarayo inuusan toos caloosha ugu wada dhicin oo kaydiyo marka loo baahdo soo wada saaro laakiin haddii xamitida xanuun ku dhasho oo dhibaato ku timaado oo markaas ay noqoto in la saaro ama marka la bixiyo runtii qofka waxaan moodaa inaan dhib weyn geysan gaaraynin ee dheecaankii beer ka soo baxayay si toos ah caloosha u aadaya ama dhicirada u aadaya marka dheecaankii beer ka soo imaanayay toos u gudbo dhicirada aado de shaqadii markaas kaydkii badnaayo halkii mar loo baahnaa soo wada baxayay baa meesha ka baxaya ma ahaane qofka wax dhibaato oo weyn oo gaaraya horta ma jiraan marka saasaan is leeyahay ayadu kaydkaas bay hadda qabataa ma ahan difaac kale iyo maaragtay waxyaalo kale oo gaar ah oo qofka ay ka difaacdo ma jiro marka saasaan is leeyahay dib weyn manaha shaqadaas horta oo is leeyahay waa laga maarmi karaa ayay qabataa waxaan aragnaa isbitaalka shaafi markii la yiraahdo Dr. Axmed Baashi oo kale oo ka shaqeeyo oo qalimo guud ay sameeyaan gaar ahaan hadii markaan ku imaano kale oo hawlahaas oo kale ay shaqooyinkaada yihiin waxaan aragnaa dhagaxaan 30 40 100 200 gaar ah qofka xamitiisa laga soo saarto halkee uga yimaado dhagaxaanta dadku bini'aadamka yaqaaniin oo qofka intuu leeqleeyo calooshiisa ku jira mise waa wax ka sameysma dhacaanka oo ay xamitidaas ay keediso waa su'aal fiican muhiim ah xamitidu saan sheegnay dhacaanka beerka soo saaro ayay keedisaa dhacaamadaas marka waxay ka kooban yihiin waxyaalo badan oo qashin saar oo jirka ka yimaada oo ay ka mid tahay dufanka oo ay ka mid tahay cholesterolka oo ay ka mid tahay maaragtay macdanta kale kala duwan ee waxyaalaha kale jirku burburiyo ayaa beerku soo saara xamitidu soo maraan marka haddii qofku uu jirkiisu ku badan yahay maxaan ku raad waxyaalahaas aan sheegnay oo qofka dadka aad ku cayilan ee jirkooda cholesterol ku badan yahay ama dadka dhiigooda burburo oo baalka waxyaalaha la mid ah ku badan yahay macdantaas aad ku qashan ugu badan yahay waxaa dhacda marka inta xamitida ay ku jiraan dheecaankaas uu kaydinayso inay ay degaan sababtoo ah haddii xataa qofku uu muddo ay dheecaanku ku jiro xamitidu wixii biyaha jirka way ka nuugtaa waxaa meesha ku haraya xogaa gufar ah oo adag marka haddii waxaas adkaadaan waxay sameynayaan wax loo yaqaano degid ama sedimentation way degayaan markay degaan waxaasi was fuulfuulayaan waxay sameynayaan dhagaxaas marka ugu badan oo xamitida ku sameysmana wuxuu ka yimaadaa dufanka ama cholesterolka marka waxyaalahaas qashinka ah oo waxyaalaha fafreysanaya xamitida gudaheeda ayaa dhagaxa sameeya marka waxa ugu wanaagsan oo looga hortagi karana waxaa weeye in maaragtay dufanka aadka isaga yareeyo biyaha aad loo cabo oo jirka aad loo biyo badan oo cabo maaragtay waxyaalaha qofkaas ugu dadaalo waxa weeyaan waxaa yaraanaya marka dhagaxii inuu sameysmo laakiin dadka inta u fiirsato dadka ugu badan ee dhagax ku sameysmo waa dadka aad ku cayilan ama maaragtay problemadaas kala qabaan cholesterol ku badan yahay waad masantahay inta badan hadda waxaa noo sheegtay in qaybaha ay markii dhagaxaantaas u kale samaysmo oo qofka bini'aadamka jirkiisa xamitida ay ku samaysanto kale dhibaataynta leeg ayuu qofku kala kulmay haddii dhagaxaantaas aan laga saarin oo qofku dhibaato xanuun inta lagu qofku maskaxa karaysa qofkiin ay dhagaxaanta isugu jiraan noloshiisa maxay u dhimaysaa haddii ay arrinkaasi gaaro xamitida waxyaalaha badanaa ku dhaca waxaa ka mid ah in dhagax ku sameysmo ama waxaa ku dhici karaa caabuq inuu ku dhaco ama xanuuno kale ku dhici karaa infekshanada jirka ku dhaca ama typhoid waxyaalaha midka infekshanada kale jirka ku dhaca ama ku dhici karaa marka haddaan soo qaadano dhagax oo kale dhagaxu xamitida markuu ku jiro dhowr qaabab buu u saameyn karaa waxaa saameyn karaa in meeshaas xamitida dhexdeeda uu maaragtay xamitida markay dhacaanka soo saarayso oo xamitida dhuunteeda xiro oo kaydkii laga rabay markay qabato oo ay shaqo bilowdo inay markaa dhagax isku xiro oo markaas qofku cuno ama cuno dufan leh oo u baahdo dhacaanka xamitida ku jiray inuu soo baxo inuu isku xiro xanuun ku keeno marka dhagaxaas wuxuu keeni karaa dhacaanka inuu hor istaago xamitida ku jiray inuu baxo oo xanuun qofka ku keeno dhagaxaasi wuxuu keeni karaa inuu xamitidii tuubooyinkeeda soo raaco kasoo fakado oo tuubooyinkii beerka soo raaco
oo meel hoose isku xanibo oo dhib ka weyn kii hore u geysto marka dhagaxaasi marka haddii uu noqdo dhagax marka aan calaamad samaynin oo calaamadahaas haddii dabcan intaas oo hadda aan sheegnay ay dhacdo qofka xanuun baa ku dhalanaya oo xanuun baa ku dhalanaya ama infectionkii baa ku dhalanaya ama tuubooyinkii beerku xiraya markaas dabcan waxay u baahanaysaa wax ka qabasho degdeg ah ayay u baahanaysaa laakiin haddii dhagaxu ku jiro oo dhagaxaasi dhagax markaas aan tuubooyinkiina xiraynin xameetida dheecaankeedana hor istaagaynin oo dhagax meesha isaga jira uu yahay waxaan isleeyahay qofkaasi uu iska wadan karaa haddii asaga uusan go'aansan inuu iska saaro oo in badan waxaa dhacaysa gaar ahaan dumarka oo dhagaxu aad ugu badan yahay haddii la baaro waxaa laga yaabaa boqolkiiba 20 dadweynaha magaalada jooga in laga helo dhagax in badan oo ka midana uusan wax calaamada wax xanuuna ku haynin marka dhagaxaas uu isaga jiri karaa haddiise laakiin uu keeno maaragtay xanuun oo dhib ku keeno waxaa khasaba markaas in laga saaro haddii qofka bini'aadamka doctor Axmed la waayo qaybo ka mid ah jirkiisa lug haddii la waayo qofka lugta kale ku socon karaa haddii gacan la waayo gacan ku socon karaa san iyo haddii la waayo indhihiina qofka waa halal laba qofooda marka barnaamijkiisa uu noqon karaa wax kale uu adeegsado marka haddii qofkii qaybo ka mid ah wadnihiisu ay dhaawac soo gaaro qamaqiin haddii beerkii uu si kale u noqdo qofku dhibaatooyin fara badan ay jiraan hawsha hadda aan ku guda jirno ee xameetida ah waxaad noo sheegteen ee howlo badan ay qabato haddii qofka laga saaray isaguna doona soo noqonayo ma sha Allah waa su'aal aad muhiim u ah oo dadka qofka markii la xameetida laga saaraya waxa ugu horeysa uu diinay waxa weeye saan noqonaya saan sheegnay xameetida markii ugu horeysa xamsi guud ba xameetida shaqo kayd ah ayaa horta qabataa ma hor istaagayso shaqadii beerkana waxa uu dhimayso kaydkaasi marka wuxuu faa'iido u leeyahay waxa weeye in qofku markuu cunno badan cuno oo dufan leh uu markii uu helo dheecaan kii loogu talagalay oo dheefshiidaha oo markiiba qaban kara marka haddii qofka caadiga ah ee xamitiisu shaqeynaysay kaydka qabanaysay haddii la yiraahdo laga saaro waxa ku soo ziyaadaya culays waxa kamid ah inuu cunno badan oo dufan leh uusan xamili karin oo ay noqonayso cunnooyinka inuu iska yareeyo dufankana iska yareeyo horta culayska ugu weyn oo ka kala kaas weyn mid labaad haddii qofku uu xameetida xanuunsato oo ama infection ay qaado ama dhagaxaan ka buuxsamaan markaas maba uu shaqeyneen xameetida shaqeynaysa oo wax u taraysa maba ahayn marka haddii uu saa ku noolaa haddii xameetida in laga saaro xanuunkii iyo dhibkii ka qaadaysaa ma ahaane haddii dhib sidiisii ka badan uma keenayso marka mar haddii ay xameetidu jiran tahay oo dhagaxan galaan oo dhagaxan ka buuxsamaan ama ay infection qaado ama ay dhib soo gaaro waxa weeye qofkaasi wax culays ah ku soo ziyaadaya ama dhibaato weyn oo gaaraysa ma jirto waxa si caafimaad ugu jira in xanuunka iyo dhibka wax laga saaro marka waa xubin aan isleeyahay waa laga maarmi karaa oo qofku haddii laga saaro dhibaato weyn oo soo gaaraysa ma jirto mar haddii jiratana dee waa caafimaad ku helaya وهاجاك داود يعني ولي وحنا نجد داود إنسان برامج كTV جدلسن دكتور كه ويدي دكتور كTV جدلسن عاوسيت توصل ولا سوتان برامج كسان هو بدي كوش يا دكتور أحمد باشي أيا يقول مرتي عاو برامج كين بدن وعصوت داوتين وواحد بدن نوجش كي هيبي كلا برامج كان سلسلة جلينا أنا قلت كده دكتور هدي قفك إن محاسوي كرمرك إن قفك حالات مركي ستاسين نقطو إن هر قليل وجار قفك لجسر حمي كده حكيني كراي saan sheegnay xameetida in la saaro waxay baahidaas imaanaysaa marka qofka dhagaxaanta xameetida ku jiray ay xanuun ku keenaan oo xanuun markii cunnada cuno ama markastaba ahaatee ay xanuun ku keenaan waxay u baahanaysaa in xameetidii iyo dhagaxeedii la saaro haddii xameetida dhib ka timid ama dhagaxaan xameetida ku jiro fakaday tuubooyinka raacaan oo ay qofkii tuubooyinkii beerka dhan ka xanibaan oo qofkii markaas ama ganacii uu jirado ama maaragtay sababtoo ganaca tuubooyin la xiriira ayuu leeyahay oo haddii dhagaxaantaasi isku xiraan meesha hoose xataa waxay khatar gelin karaan ganaca oo xanuun keeni kara markaas waxa weeye qofku naftiisa khatar bay gelinaysaa markaas oo kalena iyada waa in la saaro xameetida sababtoo ah sabab bay u keenaysaa
xameetida waxaa kaloo keenaya in la saaro marka infection badan qaado soo noqoto ayadana waa loo baahanaya ayadana in la saaro markaas oo dhan waxa weeye waa saaris buu baahan yahay marka saarideeduna dabcan qaabab kala duwan baa loo wajihi karaa oo waxay ku xiran tahay xaaladda markaas qof ku sugan yahay iyo qalliinka nooca uu xamili karo iyo qaabka loo saaray kala duwanaan karaan marka qofka bini'aadamka ilaa iyo da'da aad is leedahay Dr. Axmed waa uu ka maarmi karaa in xameetida laga saaro noloshiisa kale oo sii wadan karaa da'da caruurta ku jiraan wax saameyn badan caruurta haday baahidii in xameetida la saaro ay timaado waa laga saari karaa wax saameyn ah kuma yeelanayso korriinkiisa iyo noloshiisa dambe oo maaragtay si noolaanshihiisa wax saameyn gaar ah kuma yeelanayso waa gartay aan yaradii lagu laabano barnaamijka intaana galin ka hor faafahintaana siisay maadaama hawshii aad ku wadi jirto qalliinkuna aad u dhib badan yahay ama qofka xabadaha ku soo dhacdo ama qaliimo kale lagu sameeyo ama buraha laga qaro ama prostaataha laga qoro qofka ama xaalkan hadda aan ku jiraan ka sheekeynayno qofka xameetidiisa kale waddankan wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan heer waxaa la joogay in qofka booster loo qoro haddana waxaa la maraya qofka laser loo qoro qalliinka kugu adkaa ee noloshada soo martay inta hawsha qalliinka ku jirta kuwa wallahi qalliimo badan oo adag oo maaragtay dhib badan oo maaragtay waa soo marnay gaar ahaan qalliimada ugu adag oo aan marno waxa ugu dhib badan qalliimada maaragtay dhaawacyada waaweyn ee qofkii inta xabada ku dhacdo ama maaragtay xubno fara badan oo xameetida ku jirto beer ku jiro mindhicirada ku jiraan meel walba dhaawac maaragtay u baahan in wax laga qabto waa jiraan laakiin qalliimada ugu adag oo dhinaca xameetida ah runtii aad baan soo mareen xameetida waxaa soo maray qalliinkii ugu adkaa oo tubooyinka xameetida qalliin waddanka in lagu sameeyo adag tahay oo ay ka mid tahay in xameetida marka laga yimaado tubooyinkii ka hooseeyey ay iyaguna ay kiishash kala samaystaan oo kiishash ka baxa tubooyinkii beerka oo xameetidii lasoo dhaafo kabacdina tubooyinka kale markaana ay noqoto in tubooyinkii in la bixiyo loo raadiyo meel lagu xariiriyo mindhicir kale lagu xariiriyo mindhiciro hoos laga soo jiro oo lagu tallaalo oo kuwiina kuwo kale lagu sii tallaalo oo markaas qofkii loo sameeyo waddo kale oo beerkii iyo mindhiciradu ay ku wada shaqeeyaan marka runtii qalliin hadda aan dhawaan markii labaad aan sameynay oo aad noogu dheeraaday ilaahayna lagu guuleeyey baa jira qalliimahaas ay ugu dhib badnaa runtii as leeyahay waddankana adag tahay in lagu sameeyo oo isku day ay maartay aad isugu daynay inaan ku guuleysano ilaahay lagu guuleeyey marka as leeyahay qalliimada hadda ugu dhibka badan bay ka mid tahay oo la sameeyo marka alxamdulilah ilaah waa lagu guuleeyey maadaama aad tiri qalliinada lagu sameeyo xameetida waxay ku taalaa meel qofka bini'aadamka shaqooyinkiisa waxyaabaha ugu muhiimsan ayay ku hoos taallaa dadku intooda badanna waxa lagu sameeyo waa dadka da'da ah marka loo eego kale anaga markaan fiirino kale qofka da'da in laga saaro xameetidiisa dhibaatooyin fara badan ay ku hayso oo aan muuqaalo fara badan oo isbitaalka Shaafi adiga shakhsiyadada samaysanayaan dadku maxay ka aaminsan yihiin aaladan laysarka la yiraahdo ee qalliinada inta badan lagu sameeyo dadkan odayaashan dadka da'da waxay soo arkeen in booster loo wadalaayo caloosha la kala dhigo in meesha la galo sidii la sameeyo hadda waxay taagan tahay qofkii oo nool in loo isticmaalo laysar see looga dhaadhici karaa marka qofkaasi horta aad ugu mahadsantahay su'aashaas waxaan jecelahay munaasabada inaan uga faa'iideysto inaan saxo fahan la'aan ka jirta waxa loo yaqaano laysar oo Soomaalidu aad u caadaysatay inay kelimada laysar isticmaalaan marka laga hadlayo qalliimada runtii kelimadaas laysar waa khalad marka la joogo qalliimada xameetida kale wax laysar la yiraahdo oo lagu qabo xameetida ma jiraan ereyga laysar waa erey Soomaalidu fahmi weyday oo laysar u soo gaabsatay laakiin loo yaqaano laparoscopic marka laparoscopic waa qalab يعني biro ama tuubooyin qofka meel inta laga dulduleeliyo meeshii la jeexi lahaa qofka la wada jeexi lahaa ayaa waxa laga sameeyaa ilaa 4 duleel
duulaas waxa laga gelinayaa birahaas qalliinkii aad gacanta ku sameyn lahayd sameynay oo waxay weeye qofka wuxuu ka badbaadayaa jeexintii weyneed ka badbaadayaa laakiin laserkii aan naqaanay shucaaca ahaa iftiinka ahaa wax lagu gubayay wax lagu qalayay horta ma jiro oo waa khalad dadku si khaldan u fahmeen idaacadaha iyo dadka waxay xayisiiyana ay ereyga si khalad u isticmaaleen marka ereyga laser ma aha qalliinka lagu sameeyo ama wadanka looga sameeyo ama haddii kan kaada haysta lagu qalo wax laser leeyahay ma aha waxaa loo yaqaanaa laparoscopic ama endoscopic marka ama keyhole surgery macnaha waxa weeye qalliinkii waa la sameynayaa laakiin meel key oo macnaha yaryar oo hoolal yaryar oo maaragtay baa laga gelayaa marka ereygaas waxay u baahan tahay magacbixintaas in la saxo oo dadweynahana la fahansiiyo inay isan si khaldan u fahminayaan laser baa lagu qalayaa laserkaas oo dadku ay u moodayaan in maaragtay meeshii marka la qalo ay noqonayso meel aan la qalin oo kale maaragtay laakiin qalin yar weeye laakiin ka maaragtay ka jeexdin yar kii hore maxaa loo yaqaanaa waa laparoscopic hadda af Soomaali loo haynin in ereygaas af Soomaaliyeeyo laparoscopic la dhaho oo bay u muuqanaysaa laakiin erey kale oo dad Soomaaliya ku naqaan laakiin laser ma waa garteen Soomaalidu waxay tiraahdaa daaweynta ka hortagga ayaa ka fiican qofka inta qalliinka xameetida lagu sameeyo ma jirtaa in qofka kaniiniyaal inta la siiyo wixii meesha ku jiro dhagxana burburiyo waa su'aal aad muhiim u ah runtii dhagxanta xameetidu يعني وكلا دوينهن وكلا جلعسن yihiin dhagaxa xameetiduna haday mar ay dhagaxa inay sameeyso ay bilowdo uu ku bilaamo dhagaxaas soo noqdaa oo waa soo noqdaa marka dhagaxantu haday dhagax yar yahay oo dhagax yar yahay baaritaankana uu muujiyo dhagaxaas dhagax nooca khafiifka ah uu yahay waxaan leeyahay daawooyin lagu tijaabiyo jiraan oo la siiyo oo laga yaabo markaas inay dhagaxii furfuraan oo daawo yar oo furfurtaan oo kiimikaalki uu ka sameysana baa la qiimeeyaa kaasa marka daawo laga qoraa oo furfuraya dhagaxii baabaynaya waa la sameyn karaa laakiin dhagaxu hadduu dhagaxii adkaa yahay inta badan ay adag tahay in la kala saaraba dhagaxa adkaa iyo kan kii jilicsanaa dhagaxu ama dhagaxu uu fara badan yahay dhagax waa weyn yahay ama dhagaxii uu caabuq kiciyey oo xanuun keenay markaas waxa weeye ama dib uu keenay oo meeshii ku xanibay qofka xanibaad ku keenay markaas waxaan isleeyahay in wadada la maro oo daawo la iska qaato oo aan waxba ka soo baxaynin waxa ka dhow in qofka laga saaro oo ka biskoodo sababtoo ah waxay noqonayaan haddii xataa daawo qofku qaato aan ka ba'aynin oo soo noqdo daawaduna ayada sideeda dib kale u keenaysa marka daawo toosoo hadda maaragtay dhagax walba oo xameetida ku jira u burburiyaa ma jirto waa dhagaxanta qaar baa lagu tijaabiyaa marka ay yaryar yihiin lana ogaado inay yihiin nooca burburi kara marka saasaan sileeyahay su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxay tahay maadaama qalliin ay gaarayso in ay yimaadaan in dhagaxaan cudurrada keena in ay bukooto xameetida maxaa saan hadda soo taabanay cudurrada ugu badan xameetida ku dhaca waxaa ugu badan dhagaxaas ugu badan waxaa soo raaca caabuqa oo infection nooc kasta ama xilliga dhagaxa ku jiro ama mararka qaarkood xataa dhagax ku jirin ayay caabuq infection qaadaa waxaa ka mid ah in ayada xanuun kale si gaar loogu dhasho oo xanuunada kale ee jirka ku dhici kara sida kansarka iyo wax lamid ah ayadana wuu ku abuurmi karaa marka intaasaa ugu badan saddexdaas qaybood bas leeyahay ugu badan xanuunada ku dhaca xameetida aad baad mahadsan tahay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay oo aan caawa barnaamijkeena talada dhakhtarka TV-ga dalsan noogu martahay doctor axmed baashi oo ah khabiir dhinaca qalliimada ah isla markaana ka howlgala isbitaalka shaafi ugu dambeyntii adoo aad u mahadsan doctor axmed maxay tahay fariintaada ugu dambeysa bulshada ku daawanaysa aad u dirayso waxaan leeyahay fariinta ugu dambeysa kolley waxaa muhiim ah in lagu baraarugo cudurrada xameetida ku dhaca qofku ku baraarugo inay xameetidu tahay shaqada ay qabanayso inay tahay shaqo kayd ah in xanuunka qofka hadduu dareemo xanuun inta badan u badan dhinaca maaragtay midigta ah oo feeraha hoostooda dhinaca beerka ah oo la wareegaya oo aydin isku taagayo kale ama garabka ama qof indhaha cagaartaan oo indhuhu maaragtay isbedelaan xanuunada noocaas oo kale inay xameetida noqon karto
haddii markaa uu dhakhtarku uu kula taliyo xameetida inay maarata xanuun ku dhashay oo baahato lagaa saaro inaysan kuu noqon wax ajiibah oo aad qofku uu maarata talada dhakhtarka inuu qaato oo maaragtay si inta badan dadka dhallinyarada gaar ahaan ama xameetidoodu weli ay caafimaad qabto waxaan isleeyahay inay kasii taxadaraan inay maaragtay waxyaalaha xameetida dhagax ku abuuray ka fogaadaan oo dufanka badan iyo maaragtay inay biyo badan cabaan inay maaragtay qudaarta isticmaalaan waxyaalahaas inay ku dadaalaan oo kula talinaya maadaama aad tahay aad soo baratay ninka dhakhtarka wuxuu bartaa waxa la yiraahdo general medicine oo wuxuu bartaa howlaha dhan ee caafimaad ku saabsan maxay tahay marka waxa kugu qasbay in iyadoo qaybaha badan ee caafimaadku ay kala duwan yihiin maxaa ku dalbatay in qalliinka waa su'aal fiican runtii marka qofku jaamacadda dhameeyo takhasusiga la kala aadaa waxaan is yiri kulley takhasuska ugu baahida badan amaba Soomaaliya ay tabiiso waxa weeye waa badbaadinta yani dadka dhiban oo maaragtay runtii ama dhaawacyadu ka yimaadaan ama maaragtay xanuunada soo boodada ah ku yimaadaan ama maaragtay markii xanuunada ugu dhibka badan ugu adag runtii xanuunada u baahan qalliinka u baahan waxa weeye wuxuu isku qaban karaa haddii loo baahdo xirfadii qalliinka xirfadii kale daaweynta ma aha in qofku marka dhakhtar qalliin noqdo uusan waxba daaweynaynin oo maaragtay daawadii ka tagayay laakiin qalliinku waa ka dheeri waxyaalaha kale sidaa darteed waxa dheeriga inaan keeno oo qalliinkii la fuliyo daaweyntiina lagu dari karo markasta waxaan isleeyahay aniga halkaasaan ka eegay in markasta meel kasta oo tagto Soomaaliya inuu u baahan yahay waxa ugu baahida badan markaas u baahan yahay waxa weeye in wax loo qabto oo service wax loo qabto waxa qabashadana haddii qalliin ka baqan yahay waxa weeye waxba ka dhiman markasta wadanka marka taasaan ku darto aad baad mahadsantahay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay oo aan caawa barnaamijkeena talada dhakhtarka TV-ga dalsan noogu martahay Dr. Axmed Baashi oo ah khabiir dhinaca qalliimada ah isla markaana ka howlgala isbitaalka Shaafi ugu dambeyntii adoo aad u mahadsan Dr. Axmed maxay tahay fariintaada ugu dambeysay bulshada ku daawanaysa aad u dirayso waxaan leeyahay fariinta ugu dambeysay kulley waxa muhiim ah in lagu baraarugo cudurrada xameetida ku dhaca qofku ku baraarugo inay xameetidu tahay shaqada ay qabanayso inay tahay shaqo kayd ah in xanuunka qofka hadduu dareemo xanuun inta badan u badan dhinaca maaragtay midigta ah oo feeraha hoostooda dhinaca beerka ah oo la wareegaya oo aydin isku taagayo kale ama garabka ama qof indhaha cagaartaan oo indhuhu maaragtay isbedelaan xanuunada noocaas oo kale inay xameetida noqon karto haddii markaa uu dhakhtarku uu kula taliyo xameetida inay maarata xanuun ku dhashay oo baahato lagaa saaro inaysan kuu noqon wax ajiibah oo aad qofku uu maarata talada dhakhtarka inuu qaato oo maaragtay si inta badan dadka dhallinyarada gaar ahaan ama xameetidoodu weli ay caafimaad qabto waxaan isleeyahay inay kasii taxadaraan inay maaragtay waxyaalaha xameetida dhagax ku abuuray ka fogaadaan oo dufanka badan iyo maaragtay inay biyo badan cabaan inay maaragtay qudaarta isticmaalaan waxyaalahaas inay ku dadaalaan oo kula talinaya